Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaynu sharaxaynaa filim animation lagu magacaabo The Sea Beast. Wuxuu ka sheekeynayaa qarniyadii dhexe in ay jireen bahalo badda ku jira oo dadka badmaaxiyeyaasha iyo maraakiibta in ay weerar jireen. Filimku waxa uu ka bilaabanayaa doonta Inflatable oo badda socota. Doonta waxaa hogaaminaya Captain Crown iyo Jacob. Filim waxa uu sheegaysaa in bahal weyn uu badda ku jiro. Captain Crown waxa uu sheegaa in dadka doonta saaran in dhammaantood ay diyaariyaan si ay bahalkan iskaga celiyaan. Laakiin waxay weynaysiina ka arkayaan doon kale oo iyadana gubanaysa. Kadib Captain Crown wuxuu ku amrayaa in la joojiyo isdiyaarinta. Wuxuu kaloo u sheegayaa in doonta jihada laga leexiyo ayna u leexiyaan dhanka doonta gubanaysa si ay u soo badbaadiyaan. Markii ay u tagaan doonta waxaa ku dhagan bahal weyn, laakiin kabtanka doonta socday iyo dadkiisaba waxay iska celinayaan bahalka. Captain Crown oo isku soo laabtay wuxuu ogaaday in bahalka uu weli la soo daba socdo. Wuxuu amar ku bixinayaa in dhammaan ay diyaar garoobaan. Kadib ciidamada dhanka bahalka ay madaafiic ku soo tuurayaan. Bahalka wuxuu isku dayayaa in uu badda hoos u galo, laakiin Jacob inta uu soo dego ayuu bahalka waran ku tuurayaa si hadhow calaamad u yeesho meesha uu joogana ay ku ogaan karaan calaamadaasi. Laakiin bahalka waa caqlilo meesha kama tagayo. Jacob wuxuu Captain Crown u sheegay in bahalka weli agtooda joogo. Kadib bahalka ayaa soo baxaya wuxuu ku dhegayaa doonta. Iyaga oo iska celinaya ayaa Captain Crown lagu dhegayaa waxaana ka fujinaya Jacob. Wuxuu isku dayaa inuu bahalka doonta gediyo, laakiin Jacob ayaa wuxuu ku tuurayaa waran awood badan. Bahalkana doonta ayuu ka foqay oo badda ayuu ku dhacay. Jacob isaga oo doonta fadhiya ayaa wuxuu arkayaa seynta bahalka oo ku soo socda. Kadib badda ayuu ku dhacayaa. Bahalka wuxuu isku dayayaa inuu Jacob liqo, laakiin Jacob wuu isu soo tuurayaa. Wuxuu qabsanayaa mid ka mid ah seynta bahalka. Captain Crown wuxuu fursad u helayaa bahalka doontiisa, wuxuuna ku dhufanayaa waran aad u weyn. Bahalkan halkaas ayuu ku dhimanayaa. Captain Crown wuxuu soo jarayaa bahalka geeskiisa si uu u tusiyo boqorka in bahalka ay soo dileen. Captain Crown badda ayuu hoos u dhacayaa, laakiin waa la soo badbaadinayaa. Maalintii xigtay waxaa imaanaya magaalada boqorka. Jacob waxaa u imaanaya gabar lagu magacaabo Maisie, waxayna u sheegaysaa in wax badan ay ka taqaano qisaska bahalada badda ku jiraan, waxayna ka dalbanaysaa inay raacdo. Laakiin Jacob wuxuu dhahayaa adiga weli waa yar tahay, wuuna ka diiday. Kadib wuu soo qaadayaa wax uu dhexgelinayaa gaariga. Maalintii xigtay Captain Crown iyo Jacob waxay imaanayaan qasriga, waxayna boqorka iyo boqorada u sheegayaan in bahalka geeskiisa ay soo qaadeen ayna dileen bahalka. Laakiin boqorada ayaa ka diidaysa, waxayna u sheegaysaa in ay doonaysay in bahalka nool loo keeno. Boqorada waxay u sheegaysaa shaqsigii u keena in ay sii doonto doonta dagaalka ee qasriga leh. Laakiin Captain Crown wuu ka diidayaa, isaga oo xanaaqsan ayaa wuxuu dhahayaa waxaas ima samayn karo. Boqorada waxay ku amraysaa in Captain Crown la xiro, laakiin waxaa ka celinaya Jacob, wuxuuna dhahayaa bahalka isaga nool ayaa lagu keenayaa ee waqtigan sii. Captain Crown iska cafi. Kadib boqorka ayaa ka ogolaanaya codsigiisa. Hadda waxaan aragnaa in doonta Inflatable. Jacob iyo Captain Crown waxay qorsheynayaan si ay ku qaban lahaayeen bahalka guduudka weyn. Iyaga oo isdiyaarinta ku jira ayaa sanduuqa doonta saaran waxaa laga maqlayaa shanqar yar. Markii uu Jacob is yiraahdaan waxaaba ku jira Maisie. Waxaa loo wacayaa Captain Crown si uu u wareysto Maisie. Maisie waxa ay dhahaysaa waxaan wax badan ka aqaanaa bahalada badda ku jiraan. Kadib Captain Crown hadalkeeda waa uu ka helayaa. Sarah ayaa waxaa la dhahayaa waxaad siisaa meel ay seexato iyo midi ay isku difaacdo. Markii doonta saacad socotay ayaa waxay imaanayaan badda Dreammoon. Doonta waxay bilaabaysaa in ay leexleexato iyo cod nooc kale ah inay maqlaan. Kadib Captain Crown wuxuu ku amrayaa in la isdiyaariyo. Waxay bilaabayaan in ay ku tuuraan madaafiic. Kadib bahalka wax uu galayaa badda. Doonta agteeda ayuu ku dul wareegayaa. Jacob wuxuu Captain Crown dhahayaa si ay doonta u gudoomin waa in aynu xariga jarnaa. Kadib Captain Crown waa uu ka diidayaa. Waxaa maqlaysa Maisie iyada oo jaraysa ayaa Captain Crown waxa uu dhahayaa haddii aad xariga jarto waan ku dilayaa. Kadib waxaa ka celinaya Jacob, laakiin Maisie way ku adkaysanaysaa wayna jaraysaa xariga. Kadib doontii booskeeda ayay ku laabanaysaa. Maisie iyo Jacobna badda ayay ku dhacayaan. Waxay arkayaan bahalka hortooda taagan, wayna la yaabayaan maadaama uusan cunaynin. Kadib way soo baxayaan. Waxay Crown u sheegayaan inuu bahalka waxyeelo geysanaynin. Wuxuu Crown dhahayaa haddii aad dili weysaan idinka ayaan idin dilayaa. Jacob iyo Maisie iyo doontooda waxaa liqaya bahalka. Waxaa la yaab leh in ay weli gudaha ku nool yihiin. Jacob wuxuu Maisie dhahayaa waa in aynu halkaas si dhaqso ugu baxnaa, laakiin waxay arkayaan bahalka oo jasiiradda u sii wada labadoodii, waxaana lagu soo tuurayaa badda jasiiradda agteeda. Bahalkana wuu baxayaa.
Macy iyo Jacobna waxa ay arkayaan jasiirad bahalo dad cun ah, kadibna meel ayay isku qarinayaan. Macy waxa ay Jacob u sheegaysaa in bahalkani ay khalad ka fahmeen. Taariikhdan waxaa ku xusan ay leedahay inuu bahalkani beri yahay oo badda iskaga jiro, laakiin Jacob hadalkeeda kuma qancayo. Wuxuu dhahayaa haddii aadan xariga jir lahayn saacadan halkan ma joogeen. Kadib isaga oo cariisan ayuu baxayaa Jacob. Doonta Inevitable waxa ay ku dhowdahay inay qarqanto. Kabtan Grow wuxuu Sarah u sheegayaa in jihada ay aadiyaan dhinaca jasiiradda Morkish. Dadka oo dhanna way isku naxayaan marka ay maqlaan magaca jasiiradda. Sarah waxay u sheegaysaa in jasiiraddan la geli karin ayna halis badan tahay, laakiin Kabtan Grow uu ka diidaya isaga oo ku qaylinaya. Maalintii xigtay, Jacob iyo Macy waxa ay soo kaxaysanayaan doon yar. Markii ay dhaqaaqeenba, waxaa soo weeraraya bahal kale oo aad u weyn. Iyaga oo la cuni rabo ayaa waxaa imaanaya bahalka gaduudan, waxaana la dagaalamaya bahalka kale si uu u badbaadiyo Jacob iyo Macy. Jacobna waran ayuu ku tuurayaa. Macy waxa ay soo badbaadinaysaa bahal yar oo kalarkiisu buluug yahay, waxayna arkayaan in doontii ay duleesho, biyahana ay soo galayaan. Wuxuu dhahayaa Jacob waa in aynu u laabanaa jasiiradda. Macy ayaa waxa ay dhahaysaa waxaa laga yaabaa inuu bahalkan na caawiyo, hadba wuu ina caawiye. Laakiin Jacob wuxuu dhahayaa mana fahmayo haddii aan na caawi dhahno. Iyaga oo sidaa ah ayaa bahalka madaxiisa ku qaadaya iyaga iyo doontoodaba. Macy waa ay farxaysaa, laakiin waxa ay ka welwelaysaa dhammaan waramada dhabarkiisa ku yaalaan, waxayna bilaabaysaa in ay mid mid ugu siibto. Doontii Inevitable-na iyada oo tacbaan ayay jasiiradda Morkish imaanaysaa. Kabtan Grow wuxuu aadayaa guriga haweeney lagu magacaabo Queen Betaby oo ah haweeney saaxirad ah, wuxuuna u sheegayaa bahalka uu badda kusoo arkay. Waxay dhahaysaa waxaan ku siinayaa qori awood leh, bahal kasta awood doono ha lahaadee, haddii lagu dhufto wuu dhimanayaa. Qorigaasna waxaa ku jira sun awood badan, waxayna tusinaysaa qoriga. Jacob isaga oo doonta hagaajinaya ayaa wuxuu arkayaa Macy oo keligeeda ka bixinaysa waranka, kadib wuu caawinayaa. Jacob inta uu fadhiista ayuu buugga fiirinayaa, waxa uuna arkayaa in taariikhda ay ku qornayn in bahalkani uu dadku cunayo, ayna khalad ka fahmeen. Kadib waa uu ku qanacayaa. Waxaa imaanaya roob iyo biriq xoog badan, gudaha bahalka ay galayaan. Doonta Inevitable-na waxay soo saareen qorigii weynaa. Grow wuxuu arkayaa bahalo soo cararaya, wuxuu dhahayaa waxay soo carareen waa in bahalka weyn uu soo socdo. Wuxuu ku amrayaa in ay diyaar garoobaan. Maalintii xigtay, Jacob iyo Macy waxa ay soo dhawaadeen jasiiradda. Jacob wuxuu dhahayaa waa in aan inta bahalka ugu degnaa, sababtoo ah Grow iyo ciidamadiisa ayaa dilaya, wayna ka degayaan. Jacob wuxuu mahad celinayaa bahalka. Macy-na waxa ay hab siinaysaa bahalka, laakiin bahalka ayaa xanaaq ka muuqda. Waxa uu arkayaa ciidamada qasriga iyo doontooda. Jacob wuxuu isku dayayaa inuu celiyo, laakiin mid ka mid ah ciidamada ayaa xabad ku soo tuuraya. Bahalkana inta uu caroodo ayuu weerarayaa. Jacobna wuu dhacayaa. Macy-na awoodda uu bahalka ku socda ayaa gaaraya, wayna suuxaysaa. Kadib bahalka doontii weyneed ayuu kala jebinayaa. Isaga oo cuni raba ayaa Jacob wuxuu xabad ku joojinayaa bahalka. Mushkiladda ugu weynina waa in ay timaaday doonta Inevitable oo qoriga weyn sida. Kadib bahalka waxa uu aadayaa dhinaca doonta. Kabtan Grow-na wuxuu ku soo tuurayaa bahalka xabadii sunta. Bahalkana halkaas ayuu ku dhacayaa. Kabtan Grow wuxuu dhahayaa xabadaha laga soo bixiyo. Boqoradda waxa ay doonaysay in bahalkan oo nool loo keeno, waxayna bilaabeen in ay soo jiidaan bahalka. Grow wuxuu arkayaa doon yar oo soo socota, wuxuuna arkayaa Jacob iyo Macy oo weli nool. Kadib Macy waa la daaweynayaa. Jacob wuxuu Grow u sheegayaa in bahalka uusan dadku cunayn, laakiin Grow ma rumaysanayo. Wuxuuna u sheegayaa in dadka hortooda bahalka lagu dilayo. Macy-na markii ay maqasho ayay Grow soo weeraraysaa, laakiin Jacob ayaa ka celinaya, wuuna seexinayaa sariirta. Saacad kadib ayay imaanaysaa albaabka magaalada doontoodii. Dadka magaaladana way soo ordayaan. Waxa ay arkayaan in Grow uu keenay bahalka. Macy waxay isku dayaysaa in ay albaabka iska furto, wayna ku daalaysaa, laakiin waxaa ka furaya bahalka yar ee buluugga. Kabtan Grow isaga oo dili raba ayaa waxaa ka celinaya Jacob. Jacobna badda ayaa lagu tuurayaa. Macy iyada oo xarig ka furaysa ayaa waxaa imaanaysa Sarah, waxayna isku naxaysaa, laakiin Sarah way caawinaysaa. Bahalkana wuu soo kacayaa. Isaga oo Grow oo dili raba ayaa waxaa ka hor istaagaysa Macy. Macy waxa ay dhahaysaa iska cafi. Jacobna waranka ayuu kala jebinayaa. Labadoodii waxaa qaadaya bahalka. Macy waxay dadka magaalada u sheegaysaa in taariikhda ay ku qornayn inuu bahalkan dadka cunayo, waxayna u sheegaysaa in boqorka iyo boqoradda ay been u sheegeen dadka. Boqoradda inta ay xanaaqdo ayay dhahaysaa hala weeraro. Kadib ciidamadeedii seefta ayay iska xareysanayaan. Markay ogaadeen in amarkoodii la qaadanaynin ayay cararayaan. Bahalkana wuu baxayaa, baddiisa ayuu iskaga laabanayaa. Macy iyo Jacobna jasiiradda ayay aadayaan. Filimkuna halkaas ayuu ku dhammaaday. Haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar, channelkana subscribe. Mahadsanidin.